su'aashan waxay ku socotaa gabdhaha xalimo adigoo wadada iska maraya wiilkaaga yara wata haddaan single tahayna singalnimada ka bax maxaad ka sugaysaa haddaba intaadaan ka soconay kaftankaas adigoo ilmahaaga yara wata ayaa hal mar wax niga soo horbaxa shayaadiintaasna waxayna bilaabeen inay soo weeraraan adigoo raba inay naftkaaga gooyaan in yar ku harsan tahay inay nafta ka baxdo ayaa hal mar waxa ka badbaadeen ninkaasi waxa lagu magacaabaa Danso haddaba Danso waa ayo shayaadiintana waa ayo haddaba in yar hanin sharaxa shayaadiintan waxay yimaadeen adduunkan iyo waxay rabaan inay dadka u ugaarsanayaan waa jinniye ka soo cararay adduunyo kale ayaa doonaya inay jabiyaan xayndaabka labada adduun u dhaxeeya labada adduun oo kala ah caalamka basharka iyo caalamka jinniyada ama caalamka bini'aadanka ama caalamka jinniyada waa jinniyo doonaya inay sii daayaan sayidkooga ama ninka ugu sareeya kaasoo ay rabaan inay ku sii daayaan caalamka bini'aadanka si uu u faafiyo burburka caalamka bini'aadanka haddaba jinniyadan sidee ay asahaan ku soo baxeen ma awoodu doonaan inay jabiyaan xayndaabka bini'aadamka u dhaxeeya iyo jinniyada maanta qisada ololka ah ee macaan baa noo wada saxaaf fadlan waxaan ka codsanaynaa muuqaalka like saartid buskudkaaga shaaxaaga iyo wixii ku cajibina soo qaatay earphone-nada ama headphones-ka ka haysid aad gashatid fadhigana aad toosisatid oo jawi macaan aad gashid oo muuqi qaylo aan lahayn haddaba iminkana inoo bilaabaa sheekadeena maanta ee anime-ga The Devil May Cry habeenada kamida ayaa koox calooshadu shaqaystayaal ayaa waxay soo weeraray madxaf qoys si ay u xadaan alaabo badan markaas waxaa dhacay inay kaamirada madxafka ku yaalo dhan ay ku wada waxeeya bambo oo ku qarqarxiyaan kaamiradiina waxay noqotaa mid aan shaqaynayn markaas waxaa dhacay inay madxafkii gudaha soo galaan waxaana dhacay inay dareemaan kooxdii ilaalinaysay laakiin taas iyaga may hor istaagi doontaa waa maya qof kastoo iyaga soo hor istaaga wuxuu ku dambayn doonaa dhimasho waxayna awoodayaan inay gaaraan qolka ugu weyn ee yaala madxafka badani si ay u xadaan alaabtaas waxayna bilaabayaan inay xadaan farshaxanada ku yaala madxafkaas markaas waxaa soo baxaa ninkaasina wuxuu idhaahdaa haatani waa waxaan ka filayo aadanaha wuxuuna ugu daraayo ku idhaahdaa waxaad qaadatiin alaabaha yaryar ee aan faa'iidada lahayn waxaana iskaga tagtiin alaabaha muhiimka ah ama farshaxanada fiifiican markaas haddana wuxuu ku idhaahdaa waxaad qaadan doontiin farshaxankan waxaadna ku iibin doontiin 1 milyan ee badh sax soo ma aha haddaba ninkii la hadlayay waxa uu noqday bakayle markaas waxaa dhacay inuu bakayle ku idhaahdo miyaanan kuu sheegin waxaan ahay kii keenay farshaxankan oo ku riday madxafka gacmahayga tanina waa dhammaanteen si aan u helo seefka Spear of Night la yidhaahdo oo uu leeyahay shaydaankan hubkani wuxuu ka yimid cadaabka awoodiisuna waa mid aad u burburinaysa wax walba markaas waxaa dhacay inuu yimaado ku idhaahdo qaado madxafkan wixii yaalo oo dhan laakiin waxaan kaa codsanaynaa meesha iskaga tagtid haddaa midaad diidid waan ku diri doonaa markaasaa ninkii bakayle isagoo si confidence ama kalsooni ka muuqata ayaa wuxuu ugu jawaabaa ahaa maana rabta inay dishid kaalay dil suma qataca cunuqahu qoorta ayuuba hordhigaba ninkii oo xagaasi ku geeriyooday ninkaasi markaas waxaa dhacay in kooxdii kale ay naxaan markaas waxaa dhacay labadii nin ee kale hare waxay bilaabeen inay soo weeraraan waxaana dhacay inuu xabadaha ugu gagambiyo markaasaa kii labaad wuxuu bilaabay inuu dilo kii saddexaadna wuxuu bilaabay inuu si naxariis daraa u gowraco markaas waxaa dhacay inay raggii ilaaladu yimaadaan waxayna bilaabeen inay soo haraareeyeen markaas wuxuu ku idhaahdaa sida caadiga waxaad timaadaan goor dambe oo fandhaal iyo xeera kala dhexeen markaasaa wuxuu taabtaa badhan markaas waxaa dhacday inay badhankii u qarxo waxaana dhacay in xaggaas inuu ku geeriyooda ilaalada isla waqtigaasna waxaan aragnaa hooyadan oo haysata wiil yarkaasi oo silma filaan ah u baabay oo kadib soo laabtay laakiin wejigiisa ayaa isbedelay wixii yaraa ku ciyaaraya waxaa dhacay in dhulka kaga dhacay markaasa hooyadii oo u tagtay inay u soo celiso laakiin xilliga saddexdan shaydan ayaa soo weeraray markaasa waxaa dhacay inay shayaadiinta gabadha ciijaan nafta ka goys raahda markaasa waxaa soo baxaa ninkaas wax lagu magacaabo Dante markaasa waxaa dhacay ninkan oo nin ugaarsa shayaadiinta wuxuuna bilaabay inuu shayaadiinta u dilo markaasa waxaa dhacay inay hooyo dhulka ku dhacdo wuxuuna bilaabay hooyadii inuu soo kiciyo markaasa waxaa dhacay inay hooyadu mahad celiso markaasa Dante wuxuu ka shakiyay ilmahan yar ee meesha saaran wuxuuna bilaabay inuu xabadii ku soo wiciyo markaasa waxaa dhacay inuu yaraa inuu isku bedelo shaydaan markaasa waxaa dhacay inay hooyada cabsooto waxayna bilowday meesha iskaga cararto markaas wiilku kusoo daba carar wuxuuna isku dayay inuu qabto laakiin ma awoodin inuu qabto markaasa waxaa dhacday warkii madxafka ee la dhacay ama madxafkii la dhacay inuu ku faafo magaaladii oo dhan waxaana dhacday inuu dadkii oo dhan ka sheekaystaan madxafkii la dhacay iyo waxyaabihii qaaliga laga dhacay si loo burburiyo laakiin waxaasoo dhan waxaas muhiimad ma ahaynba marka loo eegayo waxay arkeen kaamiraduhu waxay kaamiradu qabteen makhluuqaas oo leh baalalkaasi oo awoodo inuu duulo markaas waxaa dhacay in dadkii magaalada ay qabtaan kulan si ay u ogaadaan noolahaas xaw ka yimid iyo waxa uu yahay markaasaa madaxweyne ku-xigeenka wuxuu keenaa nin saynisyahan ninkaas saynisyahanka wuxuu ku idhaahdaa waxaan kaaga fadhiyaa inaad cadeysid makhluuqan wuxuu markaasaa ninka saynisyahanka wuxuu ku idhaahdaa waxaan waxay yihiin waa shayaadiin markaase dadku waxay bilaabeen inay yaabaan markaase ninkii madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ku idhaahdaa ma haysaa cadde inaad ku caddayn karti inuu yahay waxaan shaydaan markaasaa ninkii saynisyahanka wuxuu ku jawaabaa haa sababtoo ah waxaan bilaabay DNA-ga ayaan baaray waxaana ogaaday in noolahan uu ahayn bilaadan
oo uu yahay shaydaan wuxuuna ugu daraa wuxuu ku yiraahdaa waxaan ogaanay mar hore inuu jiro shayaadiintan inay caalamka bini'aadanka ay marmar qaar soo dhex galaan xaaladuhu ay xun tahay xilliyada ay xaaladuhu xun tahay ay soo dhex galaan oo shayaadiinta ay bilaabaan inay ugaarsadaan bini'aadamka markaas wuxuu ku yiraahdaa shaydaankii ugu xooga badnaa man madaxa shayaadiinta ahaa weli ma iman caalamka bini'aadanka taasina waa war falxad leh markaas waxa soo gala shakhsigaasna wuxuu yiraahdaa waa inaad daawataan muuqaalka masaxreedni muuqaalka inay fiirsadaan waxaana ka arkaan bakaylaha soo si xun u dilaya shaqaalihii ka shaqeynaya madxafkaas waxayna madaxweynihii ku yiraahdaan haddaa rabtiin inaad naftaada ku badbaado waa inaad kaysataan nin la dagaalami kara shayaadiinta masaxreed in madaxweynuhu amar ku bixiyo inay soo qabtaan ninka shayaadiinta la dagaalami kara dhab ahaantiina taasi way dhacday laakiin ma aysan soo qaban saaxiibkeed Dante ama actorkeena animega ee Dante ninkan Dante isagu wuxuu iska fadhiyaa meel maqaayad wuxuuna iska cunayaa jalaato laakiin oo cunaya ayaa waxaa imaada gaari xamuula wuxuuna bilaabay inuu jawiga waxaa dhacay in meeshaasuu ka bilaamato dagaal waxaa dhacay dadkii maqaaxida jooga oo dhan ay ka badbaadaan waxaana ka badbaadiyey Dante markaas wiilkii Dante isagoo raba inuu cararayo waxa imaada shakhsi wuxuuna ku yiraahdaa walaalkaygii istaag muddo dheer kuma aragay maasa Dante soo jeestay wuxuuna ku yiraahdaa ma waxa tahay walaalkay markaas Dante wuxuu ku yiraahdaa walaalkay mar hore ayuu geeriyooday xagees ka tigaysa walaalkay ma wuxuu ku yiraahdaa maya walaalka waa aniga walaal istaag ku celceliya markaas waxa dhacay inuu ninkii soo weeraro waxa dhacay wiilkii inuu gambiyo waxa dhacay inaan ogaanayno inuu yahay waxan shaydaan uusan ahayn bini'aadam markaas waxa dhacay ninkii shaydaanku soo weeraro waxaan ku yiraahdaa waxa rabaa silsiladaad ku xidhantay qoorta ma wuxuu ku yiraahdaa suurta gulku ma noqonayso ma sax dhacay inuu shaydaanku ka adkaado wiilkii Dante uu xidho ma sax wuxuu bilaabay inuu silsilad ka qaato waxa dhacay wiilkii inuu xanaaqo oo darbad ku soo jiido wuxuuna ku dhuftay xabad waxaana dhacay inuu silsilada uu xidho wuxuuna bilaabay inuu isku diyaariyo inuu dilo shaydaankaas markaas waxa dhacay shaydaankii nasiib daro ka fogaado hadaba aan ku laaban madaxweyne ku-xigeenka wuxuu bilaabay inuu raaraadiyo ugaarsadayaasha shayaadiinta markaas mid kamid ah wuxuu yiraahdaa waan ka warqabaa waxa uu yahay bakaylaha waxaana ku ogaaday bakaylahan qof la yiraahdo Enzo kaasoo ku xil saaray ugaarsadayaasha shaydaanka wuxuuna si howlgal si aan lagu soo qaado boorso bakaylaha laakiin ma ana awoodin inaan bakaylaha soo qaado boorsada oo iga dalbado markaas madaxweyne ku-xigeenka wuxuu bilaabay inuu ku yiraahdo waxa rabaa inay soo qabatin Enzo dhab ahaantiina way tageen oo way baareen waxaynu ku yiri bakayluhu qofka kaliya awooday inuu fuliyo howlgalkaas waa qof lagu magacaabo Dante wuxuuna ku yiraahdaa walaalkiis iyo hooyadiisna waxay ku dhinteen gacanta shaydaanka oo yani waxa dilay shayaadiin sidaa daraadeed iyo cuqdad xun uu haya shayaadiinta oo la dagaalamaa markaas ninkii wuxuu yiraahdaa laakiin marka laga hadlayo bakaylaha ma ogin meeshuu joogo hadaba seeftan isbaarada la yiraahdo ku faanay bakaylo waxa uu keenay seefta isbaarada waxa iska lahaa shaydaankaas wuxuu go'aansaday inuu garab istaago aadanaha si uu u dilo shayaadiinta seefkiisuna waxa uu awood u siiyay inuu xakameeyo adduunka aadanaha iyo adduunka shayaadiinta ka hor inta uusan dhiman wuxuu kala saaray adduunka aadanaha iyo adduunka shayaadiinta waxaa jira wax la yiraahdo talismanka waxaas lagu magacaabo talismankana shaydaankii ayaa wuxuu bilaabay inuu laba kala gooyo si uu aanu qofna shar ugu isticmaalin hadaba talismanka la sheegay waa maxay talismanku waa silsilada yar oo ku xidhan yahay qoorta Dante waxaa dhacay in saynisyahannadu ogaadaan inuu haysto mid kamid ah talismankaas oo uu Dante haysto mid kamid ah talismanada ugu awoodda badan leh oo shaydaankii hore labada adduun kala xidhay ama xaydaabka u dhaxeeyay uu siiyay markaas isbaarada yar qoorta ku xidhay Dante waa mid kamid ah isbaarada ugu awoodda badan leh qurub kale waxa jira kamid ah isbaaradaas labada isbaaro hadii la isku keeno mid kamid ah waxa dhacay in caalamkaas ama albaabkii ka hayay shayaadiinta bini'aadanka inuu furmo shayaadiintuna ay soo weeraraan bini'aadanka xagaasna bini'aadanku ku baaba mustaqbalkooda markaas saynisyahanada lagu magacaabo Darkon waxay bilaabaysaa inay degto qorshe ay ku soo qabanayso Dante markaas waxa Darkon waxay abaabulaysaa ciidamo badan oo u gaarsato ah oo la dagaalamaya shayaadiinta waxaana markan hogaaminaya ciidamadaas madaxweyne ku-xigeenka ciidamadaasina waxay rabeen inay soo qabtaan Dante si ay uga qaadaan talismanka markaas waxay u adeegsadaan Enzo si ay u mashquuliyaan Dante kadibna ay ka faa'iideystaan oo soo weeraraan markaas waxaanu tusay gabadh lagu magacaabo Mary waa mid kamid ah hay'adda Darkon lagu magacaabo oo qaabilsan bini'aadanka ilaalisa shayaadiinta markaas waxa dhacay in kooxii soo weeraray wiilkii Dante waxaana dhacay inuu Dante si yar fudud uga hortago weerarkooda wuxuuna bilaabay inuu isticmaalo awoodo la yaab leh si uu uga badbaado weerarkooda halista badan leh markaas waxa dhacay in Mary soo weerarto wiilkii Dante waxay bilowday inay ka qaadato talismankii qoorta ku xidhnaa waxaana bilowday inay bamba ku qarxiso oo ka fogaato marka gabadha Mary lagu magacaabo waxay malinaysaa Dante inuu yahay shaydaan markaas waxa dhacay Mary inay siisay irbad qaraxa oo wiilkii Dante waxaana dhacay in la geeyo xaruntooda markaas waxa dhacay madaxweyne ku-xigeenka inuu wiilkii Dante ka dhaadhico ku yiraahdo naga soo bir kooxeena anaga ayaa ku baahan awoodahaaga rabnaa inaan
ka faa'iideysano si aan uga hortagno shayaadiinta halista badan leh wuxuuna ku yidhaahdaa anigu waxaan ahay bar shaydaan laakiin qalbigayga waxa ku jirta bini'aadantinimada oo waa ka awood badanaa shaydaanka ku jira qalbigayga markaas waxaa inuu bakayluhu soo weeraro kooxdii Darkon wuxuuna bilaabay inuu adeegsado gantaalo markaas mid lagu magacaabo Antares wuxuu siiyaa qayb kamid ah talismaanka kaasi oo laga soo qaaday wiilkii Danto waxaana dhacay inuu bakayluhu isku daro labadii talismaan waxaana dhacay in uu ka helay awood saa'id oo badan laakiin si uu u furo awooddaas oo dhan u wada isticmaalo wuxuu u baahan yahay furo markaas waxaa Danto inuu furo wuxuuna bilaabay inuu ka hortago gantaalada ku soo sii deynaya bakaylaha isagoo badbaadinaya baskaasi ay ku jiraan dad shacab ah markaas waxaa inuu bakayluhu qabto wiilkii Danto isagoo adeegsanaya irbadda ay ku midda gabadhi Mary wuxuuna ogaaday in wiilku yahay isbaaro waxa weeyaan qofka barna ka shaydaan barna bini'aadanka markaas bakayluhu wuxuu ku celiyaa ku yiraahdaa soo saar awooddaada oo tus awooddaada markaas waxaa dhacay in laba shaydaan ay wiilka ay garaacaan suuxna u jir dilaan waxaa dhacday in soo xasuusiyana ku yiraahdaan waxa tahay wiil daciifa aabaha iyo walaalkaas iyo hooyada ay naga qaban karin weyday waxa tahay wiil doqona oo aan awood lahayn markaas waxaa wiilkii inuu ciil u dareemo waxaa dhacay in wiilkii bar uu noqdo isbaaro oo yeesho baalal iyo shaydaan isku bedelo markaas waxaa dhacay wiilkii inuu badbaadiyo dad rakaab oo saarnaa diyaarad oo ka badbaadiyo gantaaladii ama weerarkay ku soo weerareen shayaadiintu intaasan ku soo gabagabeynayna muuqaalkeena maanta fadlan subscribe soo saaro kanaalkana waxa isla la anigii iyo saaxiibkii Sheekaawi maca salaama wa shuufkum fi xalqa jaay